daawuus ninka la yiraahdo taabicigi weynaa daawuus ibn kaysan la oran jiray wuxuu leeyahay uu warinaya nin baa wuxuu dhalay buu yiri afar wiil buu dhalay markaasuu xanuunsanay odaygii baa xanuunsaday odaygii markuu xanuunsaday afartii wiil mid ka mid ah hadlo wuxuu yiri laba ummaan mid inka doonaya odayga inaan farta inaan inkaga qaado yani korjoogiisa iyo gadgadintiisa iyo yani jiraajintiisa tamriidintiisa inaan idin daayo oo dhaxalka ila qabsan hadhow waxa alla wixii asaga uu ka tagaana qaadanay wa imma inaan aniga ii daysaan oo maanta anu aan odayga kor joogo oo gadgadiyo oo ilaa uu dhinac uga dhacayo dhaxalkiisana aan waxba ku yeelanin labada mid yeelabo hada dhaxalka ka qadninkee yeelayo odayga xoolo ka tagayay xoolaha nin walba ka qadninka yeelayo way waxa la yiri adigu odayga kor joog oo gagadi oo intuu ka adu dhinto kor joog adigu dhaxalkiisana ka qad hadaaba sida rabto waa looga kala tagay awal buu xurray in loo daayo moogtay marka odaygii buu iska kor joogtay oo deena walba baari buu haay wuu gagadistay odaygii oo uu kor joogay oo waxa uu la mari karay buu la maray odayga waa dhintay fumaad markuu dhintay halkaasuu ka baxay dee shuqul kuma yeelan dhaxalkii qoladii kale saddexdii kale baa iska qaybsan ninkii ru'ya loogu yimid baa leeyahay ru'ya lagula hadlo markaas waxaa lagu yidhi iiti makaana kada war meeshaas heblaha intaad tagto fakhud minhaa yani 100 diinaar 100 diinaar ka qaada meeshaas hebla tago 100 diinaar orod ka qaado 100 oo dahaba wa marka asagii baa sheekeynay qultu waxaan iri buri fiiha baraka 100 diinaar oo meesha aan ka qaadanayo kuwa baraka la mid tahay qaaluu waxay yiraahdeen buri la ma baraka ma leh waa 100 lacag badan laakiin baraka ma leh waagu markuu bariyay buu xaaskiisii u sheegay sidaasaan arkay saasa leeyahay maxaan sameeyaa halkii man lacag ka qaada leeyahay 100 diinaar markaan weydiiyo baraka ma leedaan irina waxa la yiri wiri la baraka ma leh markaasay tiri waro lacagta noo soo qaadiyo ku gadano on ku noolaana barakadeeda kamid ah noo soo qaadiyo lacag fa aba wudid ma qaadanayo aniga wax baraka laan leeyahay sheegay ma qaadanayo فوتية ثانية مر لبعض بهدرنا الله إما ذهبين كل لبعض إيتي مكان كذا ماشى هبلا أطجع فخذ من يعني منه وحققها 10 دنانير 10 بات عليك قال قلت وحاني ربي فيها بركة 10 كشلن 10 بركة لمين قالوا وحيد هذين بر الله ما بركة ماله واجو مركو بريب وهدنا حاس كيس وشيء ورا حاجة أنا فكرنا الناس وقال أول بعد بقول كشلن نقف كيسه وادي هذا وحير وحن بركة لنا نقوم قادنا مرة دي صدحات باللو يمت مركاسا وحلو يتي مكان كذا فخذ منه دينارا ما شاهب لي يعتقوا هل سلن ودهب كقاضي قلت وحان ربنا فيه بركة سلن كسلن بركة لما يهي قالوا وحير نعم وسلن بركة يزنا كقاضي ماشي صبح مركو واقو بريانا هذه برو ماشي سلن كيف انك سوقاتيم سلن مركا قولي الله يمت سوقا لا هذا وحان ربنا دوائنا كسو هذه قلنا سلن كان suuqa mar alla markuu sii tagay oo sii galay waxa ka hor yimin laba xabo malay ah wada oo iib ah laba xabo malay ah yaxmilu xuutayni laba kalluun buu wadaa waristaag balay meeqay joogaan bidinaarin labadan lama kala reebayo hal shilin bay joogaan saas aha waa ka shilinkii qaado labisi diinaar labisi malay buu soo qaatay gurigu la yimid markii waa la qala hada Soomaaliya malay la qala Soomaha xabadii horeysay markuu sidaa u kala dilaaciyay وحاب دحتا للدر جوهر عجيب وقالها بدحتا له كي كلو دلاعي مد كلا دحتا لا اذا كدركي لو حبه جوهره وهدي قيمها اي كفديان ودم مغالده نسكيدا ايا دحيال بس hilibkiisii uu iska karsaday jawhartiina intuu dhig isla markaa boqorkii marka meesha xukumayay ya amar bixiyo wuxuu yiri jawhar waa in la keeno qaali oo aad u nafiis ah baashi baa la raadiyay ninka moogay ninka loo hayo ninka un baa loo yimid aftiis meeqaankaas oo naga gadbaalay baashan meeqaad iga siinaysaa boqorka loo sheegayo markaas wuxuu ka siiyay 30 wiqran 30 gaadiid ah wax lagu raray buu ka siiyay 30 gaadiid ah lacag la saaray maxaad malaysaa markii loo geeyay boqorkii baashi oo arkay wuxuu yiri midan oo kale ma wanaagsano ilaa bi ukhti laha tan tulma taan hool nooceedo kala haajirtay hal la raadiyo meel laga keeno xagee kale laga helay asagii baa la weydiiyay waan hayaa buu riwaatan
keen baa la lacagtaa lagu laban laabayaaye markaasaa tii hore 30 gaadiida laga siiyey soo maa 60 gaadiida lacag lagu raraa laga siiyey labaad muxuu ku helay arrintaas biriga aabihii buu ku helay waladka iyo waalidku waa kala duwan yahay baa la yidhaah waalidku ilmahoodu markuu yar yahay wuxuu mar kasta qalbiga yacni ka jecel yahay oo ilaahay u baryaa inuu ilaahay barbaariyo inuu weynaado inuu cibrigiisu dheeraado inuu wax fiican noqdo waladkuna waalidku markay duqoobaan oo agtiisa ku duqoobaan muxuu tamaninayaa ilaahu iga astur buu leeyahay ya waalidkii cibriga ilaahu igu dheereen ma dhahayo ninkii waalidkiisu dhintay ceebtiisa ilaahay waa asture ilaahu ceebteeda astur buu leeyahay wuxuu jecel yahay inuu labada waalid xabaalo khalaas soo ma aad bay u kala duwan yihiin baa leeyahay wax isu dhow maaha waladka iyo waalidka rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam axaadiis badan oo la koobi karin buu birul waalidayn kaga warramay muslim iyo bukhaari waxay wariyeen saxiixaynkooda ay ku wariyeen abi hurayra saxaabiga la yidhaahdo laga warinayo nabiga sala allahu calayhi wasalam nin baa u yimid markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahayo man axaqu nnaasi bixusni saxaabatii dadka yaa ugu xaqnimo badan inaan si wanaagsan ola dhaqmo si wanaagsan inaan ola dhaqmo yaa iigu xaqnimo badan dadka qaala wuxuu yidhi nabigu ummuka hooyada uma qaala wuxuu yidhi ninkii nabigii uma man buu yidhi ninkii uma man yaa ku xigo qaala wuxuu yidhi nabigu ummuka hooyada qaala wuxuu yidhi ninkii uma man qaala wuxuu yidhi nabigu ummuka hooyada 3 goor buu nabigu ku celiyey calayhi salaatu wasalaam hooyada xaqeedaa weyn labada waalidba ayagoo xaq kugu leh haddana hooyada xaqeedu sii weyn yahay markii xagga biriga la marayo birul waalidayn markii la joogo hooyadaa la hormariyaa liannahu way ka dhibaato badnay hooyadu qaala wuxuu yidhi uma man qaala wuxuu yidhi nabigu uma abuuka aabbaha ayuu yidhi markii afraad uma adnaaka fa adnaaka qofba qofku kaa xiga unbaa haddana xaq kugu siil saasuu nabigu leeyay qofba qofku kaa xigo marka markii ilmahan korintiisa iyo dhibka lala soo maray markii la fiiriyo hooyadaa xagga dhibka badnayd baa la yidhahdaa hadhow markay labadoodii haddana isla weynaadaanna hooyadaa tabar daran baa la yidhaha marka laba gooraba baabul biri markii la marayo hooyadaa xaq weyn aabbaha iyo hooyada nin baa nabiga u yimi sala allahu calayhi wasalama faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina lii maalan wa waladan rasuulka ilaahay ow xoolaan qabaa ilmana waan leehay dee carruur badan baan leehay wa ina abii yuriidu an yastaaxa maali aabbahay baa wuxuu doonayaa waxaan haystoo dhan ba inagu iga qaato soo anugu kumaana soo korin haa meeshaad rabta ilmahaaga oga shaqayso waxaa haddaad haysataa anaa iska qaadanayo yidhi bu hadda anigana ilmaan leehay carruur baan leehay aabbihina waa laga yaabaa inuu asna carruur yar leeyahy dadku way yidhahdeen hadda aabba adigu haddaa carruur yar leedahay anigaba kuwa yar baa ii joogaan korinaya soo ma sidaasaad ka odhanaysa aabbaha marka wuu soo dacwooda wuxuu rasuulka ilaahayow xoolo waan haystaa hadda xoogaa waan ladnahay ilmana waan leehay dee ilmahaas unbaan yuu ka fikirayaa ilmana waan leehay aabbahayna wuxuu doonayaa buuri an yajtaaxa maali istaaxa waxaa la yidhaha in la jirid gooyoba eber kulli inuu iga wada qaato raba hadda saasaan dacwo ka ahay waa muxuu nabiga ugu jawaabay anta wa maaluka liabiika adiga iyo xoolahaagaba aabbahabaa iska leh maxaad sheegi suu raba ha yeela asaga ya anta wa maaluka liabiika buu nabigu ku yimi calayhi salaatu wasalaam maaluka liabiika buu nabigu ku yimi calayhi salaatu wasalaam ibnu maajah baa xadiidkaa warinay marka aabbaha inaad maslaxado mooyaane dee inaad tidhaahdo waxba shaqo iskuma lihin xoolaha anaa shaqaystay inta ka bax khalad weeye taas shalay markii lagu korinayay maxaad ahayd waxba maad ahayd dhib badan baa lagula soo maray cabdullaahi bin cumar baa wuxuu arkaaday nin hooyadii intuu xumbaaray kacbada dawaafsiinayo oo qofka hadduu caajiz yahay waa la xumbaaraa soo maa ama sariir baa lagu qaadaa hooyadiibuu intuu dhabarka saaray buu dawaafsiinayaa markaasuu soo fiiray wuxuu yidhi cabdullaahi bin cumarow miyaada arkaynin buu yidhi hooyada inaan xaqeeda u guday hooyada inaan xaqeeda u guday sooma aragti markaasuu wuxuu yidhi khayr baad samaysay axsanta wanaag baad samaysay xaqeeda ma gudan kartid laakiin khayr baad samaysay buu yidhi maxaa yeelay maalin ay dhabarka kugu waday dharabta aad saarneed dharabta ama ay ku xumbaarsanayd oo sidaa intaad u dhaqaaday inay dhacday ay moodday ay naxday naxdintaa keliyaada weligaa gudi karin buu yidhi
هذا أنت أصلا قرنا بركة كده وسيسن ما بيقدر يرتبي لكن وناك بس ما يصير خير الله كسيه بود خير الله كسيه والدك حق يسلم بدن كر والله ليه حق والدك وحل جودي كرماها وحاكلي أو لجربها إن هذا الدعاء يسلم هذا والد أنت تبرت هذا أنا بري وذات كداش إن هذا رالي جلين كرتون سكوت اللي هذا والد والله وحي كرمان قولك وفعلك إن هذا أجل عسوان حتى يعني وحي هذا قبلنا هنا حتى وحرب إن هذا الوناك سكوت راض مرنا بهذا الكاكور كين اللي هذا الوالد أو كنا شيء لو هذا الوالد أو كنا له هدبين عاسي هكون نغنن بري جوده هكا قابلن دعاء هذا كود دال وناك جوده وهذا اللي يساسق أدون الدنيا آخر البدر وتكون اللي سوا في كل جزء من بلادي قصة تروي ضياع كرامة الإنسان هي قصة الإسلام في أوطانه أمسى غريبا كالطريد الجاني هي قصة صاغ الحديد فصولها